asalaamu calaykum daawadayaal ku soo dhowaada barnaamijkeennii diblomaasi goor dhoweydoo maanta ahayd ra-iisul wasaaraha dalka swidhen waxa uu sheegay xilli uu ka hadlayay hay-ad ka shaqaysa arrimaha gaashaandhigga oo ku taalla magaalada stockholm ee caasimadda dalka swidhen in dowladaha swidhen iyo fiinland ay ka daalan yihiin dalabaadka aan kala joogsiga lahayn ee ka imanaya dalka turkiga waxa uu sheegay ra-iisul wasaaraha dalka swidhen in dowladaha fiinland iyo swidhen dowladda turkigu ay weydiinayso waxyaaba aanay awoodin inay siiyaan amaba aanay u baahnayn waxa uu sheegay maalinbata ka dambaysa dowladda turkigu inay weydiinayso dalalka waxyaabo aanay bixin karin oo carana geliya sanadkii lasoo dhaafay ayay ahayd markay dowladaha swidhen iyo fiinland go'aansadeen inay ku biiraan gaashaanbuurta nato iyagoo xilligaa islaa waxaad ka helaysaan damaanad qaad amni kana baqayey dowladda ruushku inay iyaga soo weerarto markay ka takhallusto dalka yukrain ee xilligaa howlgal ka bilowday xilli dambena ku-biiritaanka dowladahaas waxaa is hortaagay dowladaha turkiga iyo hangari oo madaxda ka arrimiya ay yihiin kuwa saaxiiba isuna dhow dowladda hangari ayaana xilligaa caddayn sababta ay uga hortaagan tahay labadan dowladood inay ku biiraan gaashaanbuurta nato balse dowladda turkiga aragtideedu waxay ahayd mid sida dayaxoo kale u muuqata waxayna ku eedaysay xilligaa labada dowladood inay yihiin kuwa iridaha dalalkooda u furay soona dhoweeyay dadyo kurdiyiin oo ka tirsan ururada y b g iyo weliba b k k oo dowladda turkiga uga diiwaan gashan iyo weliba inta badan gaashaanbuurta nato inay yihiin ururo argagixiso ah muran fara badan oo labadan dowladood iyo turkiga dhex maray waxaa loo kala saxeexay heshiiskaasuna waxa uu farayay dowladaha swidhen iyo fiinland inay dowladda turkiga kala shaqeeyaan wax walbo nabadgelyadeeda gudaha khuseeya khatarna ku keenaya amniga guud ee dalka xilligaa qodobadii dowladda turkigu ee miiska soo dhigtay waxa ugu sarreeyey inay u soo gacangeliso dadyow dalka ku nool oo dowladda turkiga looga aqoonsan yahay inay yihiin kuwa argagixiso ah iyo weliba qaar kale oo lagu eedeeyey inay u dhow yihiin lana shaqeeyaan wadaadka lagu magacaabo fatxullah gulaan ee fadhigiisu yahay dalka maraykanka xilligaa wixii ka dambeeyey waxaa dadyow badan oo kuwa adduunka u arkayeen labada dowladood goordhow inay ku biirayaan gaashaanbuurta nato maadaama ay qaadeen tallaabooyin farax geliyey ankara iyo weliba madaxweyne erdogan balse hadalkan maalinimada maanta ka soo yeeray ra-iisul wasaaraha swidhen ayaan shaki ku jirin inuu caro gelinayo madaxweyne erdogan iyo dowladdiisa erdoganna waxaba uula boclo ugu tukumayey sidii uu labada dowladood ugu diidi lahaa inay ku biiraan gaashaanbuurta nato oo u arko inay tahay iyadu gaashaanbuur dhinac keliya ka raran dowladda turkiga ayaa xubin ka ahayd gaashaanbuurta nato wixii ka dambeeyey 1952 waana dowladda labaad ay ku qaalaantaa ciidamada ugu badan waa awoodda labaad marka laga reebo dalka maraykanka ay gaashaanbuurta nato isku hadlayso sidaasoo ay tahay dowladda turkiga iyo madaxweynaheedu waxa u arkaa inaan awoodda baaxaddaale lagu qiimayn laguna faquuqa dhaqankooda gaarka iyo diinta islaamka ay haystaan sidoo kale daawadayaal indhawaalaba waxaa soo badanayay dadyow iyo dowlado u ololaynaya in dowladda turkiga gebi ahaanba laga tuuro gaashaanbuurta nato arrintaasuse ma aha mid ka suuragelaysa dowladaha reer galbeedka ah gaar ahaan dowladda maraykanka oo iyadoo og inaanay ka maarmi karin bogcadda istaraatiijiga ee turkiga ku yaal indhawaalana madaxweyne erdogan waxa u dhowaanayay dowladaha bariga ah gaar ahaan madaxweynaha ruushka valadimir putin haddiiba ay heshiis noocan oo kale a gaaraan dowladaha turkiga iyo ruushku bogcadda istaraatiijiga ee turkiga ku taalla waxay noqonaysaa mid ay ku faa'iido dowladda ruushku dowladda maraykankuna ma aha arrintaa mid oggolaanaysa dowladaha iyo dadyowga doonaya in laga saaro gaashaanbuurta nato dalka turkiga ayaa waxay yihiin kuwo yuruubiyaan u badan waxayna ku eedeeyeen dowladda turkigu inaanay buuxin labada shuruudada kale ah cidda ku biiraysa gaashaanbuurta nato inay tahay dal ku yaalla qaaradda yurub inkastoo aynu ognahay dowladda turkiga oo qayb dhulkeedu ka mid a inuu ku yaallo qaaradda yurub balse tan ugu weyn ay ku eedeeyaan dadyowgaasu turkiga ayaa waxay tahay inaanay buuxin shuruudda dalka ka mid noqonaya gaashaanbuurta nato inuu noqdo mid dimuqraadi ah waxayna ku dhaliilaan madaxweyne erdogan inuu yahay mid keligii taliye ah si kastaba ha ahaatee ma filano dowladaha gaashaanbuurta nato ee reer galbeedka inay ku dhiiran karaan inay turkiga ka saaraan gaashaanbuurta balse daawadayaal haddii allaha awoodda la oggolaado waxaynu ka samayn doonnaa arrintaa muuqaal dhammaystiran oo aanu idinku siin doonno faahfaahinno dheeraad ah waxaana kuu furan in aragtidaada muuqaalkan ka dhiibato erayada ka soo yeeray afka ra-iisul wasaaraha swidhen maalinimada maanta ah ma kula tahay kuwii uu erdogan sugayay muddada dheer
gebi ahaanna ugu diidi lahaa labada dowladood Sweden iyo Finland inay ku biiraan gaashaanbuurta NATO. Ha ilaawin aragtidaada inaad commenti nagula wadaagto. Aragtidaadu waa noo muhiim. sidoo kale maadaama waxaynu daawanaynaaba ay yihiin wuxuun diblomaasiyadood aynu isleenahay waxtar ka hela, waxa wanaagsan inaynu googoosanno. fadlan qaab commenti aragtidaada nagula wadaag. mahadsanid.